Mr. President. Mr. Prime Minister. It's good to talk to you. And before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is seminal and historic. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day, and I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there. I think this will be a great opportunity for expanding our partnership. We intend to... بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم. مرة كوباد الكلام احنا همبليا كدريا همبليا ودريا شعب كرير سوماليلاند iyo madaxdooda waxaan leeyahay congratulation marka labaad waxaan rabaa inaan sheego in la aqoonsaday Somaliland jamhuuriyadda Somaliland waa la aqoonsaday dawladda horeyso maanta aqoonsatay sida halka ay kaga muuqata waa dawladda Israel ra'iisul wasaaraheeda ayaa aqoonsiga ku dhawaaqay Israel 26kii June 1960kii waxay ahayd qaramada midoobay hoolkeeda aftidii loo qaadayay in la aqoonsado dalka Soomaaliya dalkii u horeeyay ee gacanta u taagay ee aqoonsaday shalay maantana waxay aqoonsatay sidoo kale dawladda horeeyay waxay noqotay dawladda horeeyay ee aqoonsata Somaliland waaye Xasan Sheekh Maxamuud Muuse Suudi iyo Nabadon Abaabul unukaare bay xamar la fadhiya waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland iyo madaxdooduba inay ayaguna aayahooda ka tashadaan Somaliland way tashatay ilaahayna riyadeedii waa u rumeeyay wax kasto lagu dadaalana waa la gaaraa dadaalkii 30 sano ay ku jireen ayay maanta mirihiisa guranayaan waxaan kaloo xogteedii kugu darayaa saacadaha socda ilaa 5 iyo 4 inta u dhaxaysa oo dal oo Afrikaan ah inay ku dhawaaqi doonaan aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland liq oo kaniini malaria oo kala sidiis oo liq xataa haduu kugu kharaariyo Xasan iyo teamkiisaan la hadlayaa teamkii qadar baan la hadlayaa oo liqa aqoonsiga Somaliland sida kaniiniga malaria oo kale haduu xataa kugu adag yahay malaria dalqada lagu tuuro biyana waa la isticmaalayaa dad Soomaaliyeed walaal Soomaaliyeed oo horumar gaaray marnaba aniga u noqon mayso kaniiniga malaria oo kale waan awoodaa inaan hambaliyeeyo waan awoodaa inaan ducana ugu daro waxa kaliya oo dhiman reer Puntland waxaan leeyahay idinkuna dantiina u istaaga Puntland danteeda ha laga shaqeeyo siday caalamka oo jaan qaadi lahayd dadka Soomaaliyeed awalba annaga lagu haysanay haddaan reer Puntland nahay annagaana hadda sii deynay lagu Xasan iyo teamkiisa waxaan leeyahay adeeraya xamartaas aad ka dhigateen adiyaal ku rooyahay magaci Soomaaliyeedna lagu wasay dadkii Soomaaliyeedna lagu bahdilay ee arkaysay dadka in afduuban yihiin dadkaas loo taliyo reer Puntland oo tashada reer Somaliland waa tashadeen oo hambaliyeeya guul baan u rajaynaynaa Somaliland socotaya loo dhowr baan leeyahay hambaliyo baan leeyahay reer Somaliland sideedaba walaalka oo wax qabsaday ina adigu wax qabsatay kama duwana garan mayo wax maanta looga mudaharaado ama maanta lagu hadiya lagu rooyo looga xumaado walaal Soomaaliyeed wax gaaray Somaliland hadii ay maanta wax noqotay ogow biri wax bay ku tari kadhaa oo gacanta ku qaban kadhaa laakiin aqliga xamar yaala waxa weeye aan wada baqtino aan wada haraadno aan wada gaajoono aan wada dhimano aan wada baabano aan wada qaraxno aan wada taasina maaha wax muslim ku fakara maaha wax dadnimada ku fakara maaha wax hadiya la ku rooyo qof insaan ku fakara maaha insaan wuxuu ku fakaraa hatta hadaad wada jabta la askariyo Soomaaliyeed ama laba shakhsiyo aqaliyad leh haday hatta go'doomaan wuxuu yiraahdaa askariga kale walaal ana ka dalxiraye adigu ora baxso
هيودوا اللبنان هذا ناوي حتى بنوده سوماليلاند marka waxaan leenahay walaalayaal horay u socda hanu dul dhimanine annaga balaan la xadhay Puntland waxaan leeyahay dantiina u istaaga caalamka maanta soo jeeda geopolitics baa loo istaagay maanta loo jeestay adduunkuna waxa uu eegayaa gacanka cadmeed iyo badda cas dawlad kasta oo ku taala gacanka cadmeedna waxay leedahay muhiimad gooniye iyo jiritaan gooniye iyo ahmiyad ay dalka u leedahay Puntland waxay kamid tahay iyo Somaliland ba dhulka ku yaala gacanka cadmeed ama Red Sea ama baabul madabna dunida muhiim buu yahay xamar waxa yaala waa moos iyo cambe baqbaqa yaala adduunkuna cambe iyo moos uma baahna shidaal buu baahan yahay iyo marin biyoodkaas muhiimka ah adduunku waa tashaday Puntland waxaan leeyahay tareenkaas Somaliland raacdo kale soo raac ama Somaliland noogu badaraba aan isku darsan ama aan anaguna aqoonsiga raadsan wabillahi tawfiiq reer Somaliland hambal yaan leeyahay guuleystaan leeyahay waxaan leeyahay ilaahay hadii nabad yeelo ilaahay kuwii Soomaali anfaco tala iyo tusaale siiya ama ciidan buu soo siyaadiyeen Allah idinka dhigo ciao ciao